xildhibaanada golaha shacabka senatarka wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka galmudug xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir odayaasha dhaqanka deegaanka dayniile dhalinyarada iyo gabdhaha iyo ganacsatada bahda saxaafadda iyo inta ka soo qayb gashay munaasabadan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horreynta waxaan rabaa inaan u mahadnaqo guddoomiyaha degmada dayniile ku-xigeenkiisa iyo tiimka degmada oo maantay nagu soo dhoweeyey degmada dayniile iyo munaasabadan soo dhoweynta iyo qadada macaane sharafta leh waxaan u mahad celinaynaa deegaankan communitiga iyo dadka degan dayniile guud ahaan xildhibaanada iyo odayaasha iyo guddoomiyaha iyo tiimkiisa kaalintii mugga laheed ay ka geysteen dib u heshiisiintii iyo dhismihii maamulkii galmudug si gaar ahaaneed anoo ku hadlaayo magaca baarlamaanka iyo dowlad goboleedka galmudugba waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa muddadii dheereed iyo hawshii badneeda ay ka soo qabteen galmudug oo la'aantood aan dhihi karno ma soo gaari lahayn heerka maanta ay soo gaartay galmudug aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa galmudug oo maantay yeelatay hal maamul iyo hal madaxweyne iyo hal caasimad iyo golayaal mid ah galmudug oo maanta soo gaartay xuduudkeeda laga bilaabo degmada matabaan ilaa gaalkacyo si nabada lagu maraayo si nabada lagu tegaayo waxaan mahadda weyn u celinaynaa dowladda federaalka oo gacan weyn ka geysatay dhismahaas maantay waxaan rabaa inaan hambalyo iyo bogaadin u jeediyo guddoomiyaha degmada dayniile iyo bulshada degmada dayniile oo markii aan ka tegayno oon aadaynay galmudug sida aan maanta ugu nimid si ka duwan ahayd waxaan ugu hambalyaynaynaa kuna bogaadinaynaa horumarka iyo nabadda ay ku tallaabsatay degmada dayniile ugu horreeya waddada aan maanta soo marnay ugu horrayso ama ku xigto horumarka iyo dhismaha iyo korontada iyo biyaha iyo muuqaalka maanta ka muuqdo oo 6 bil ka hor markaan ka tegaynay ka duwaneed sidaan waa ugu hambalyaynaynaa waana uga mahad celinaynaa sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa gobolka banaadir guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo maamulka gobolka banaadir gacantii ay ka geysteen iyo taageerada ay siiyeen degmada dayniile waxaan aad iyo aad ugu bogaadinaynaa uguna baaqaynaa bulshada reer dayniile oo lagu yaqaano iskaashi iyo wadajir iyo qurxinta muxuu ahay muuqaalka dalka iyo dadka Soomaaliyeedba inay aad iyo aad gacan uga geystaan degmadu sidii ay u gaari lahayd degmooyinka kale oo lamidka ugana hormari lahayd arrintaasna aadaan ugu guwaabinayaa oon ugu soo jeedinayaa waxaan xasuustaa idoo degmada dayniile loo soo aado cayaaraha hidaha iyo dhaqanka ayadoo dalxiiska loo soo aado ayadoo aan soo baxno jumcada oo aan iraahdo dayniile qofkii aan imaanin uma jirto ayadoo la isku dilo baskii la dhihi jiray aburaas marka la soo aadayo
oo intiina badan aad ka yaryartihiin ama aydan soo gaarin marka waxaan rajaynaynaa insha allahu muuqaalkeedii iyo astaantii lagu yaqiinay iyo kaalintii ay uga jirtay hadday noqon lahayd cayaaraha degmooyinka oo markii fantasiyada iyo festivaalka gobolka banaadir la samayn jiray ay aad uga muuqan jirtay la soo celiyo hadduu alla yidhaahdo jidadkeeda iyo horumarkeedana aad iyo aad loo dhammaystiro gacan weynna ay ka geystaan bulshada degmada dayniinle oo lagu yaqaano inay isxilqaan iyo iskaa wax u qabsaba ay aad gacan uga geystaan waxaan rabaa mar kale xildhibaanada iyo madaxda meeshaan isugu timid iyo dhallinyaradaba inaan ka codsanno dadaalkii weynaayo ay galmudug ku bixiyeen annagoo uga mahad celinayno inta dhimanna inay nala dhammaystiraan horumarka dayniinle degmooyin badan oo ka haray oo galmudug ahaa jira oo u baahan in dhankii nabadda iyo horumarka lagu soo celiyo iyo nolosha taasna waxaan rajaynaynaa inay gacan weyn ka geystaan una diyaar garoobaan halgankii galmudug qaybta ka dhiman nalala dhammaystiro ugu dambayntii waxaan mar kale u mahad celinayaa maamulka iyo shacabka iyo deegaanka ee degmada dayniinle soo dhawayntooda waa ku mahadsantihiin insha allah waxaan rajaynaynaa annaguna inaan galmudug idinku soo dhaweyno sidii horeba aad qayb uga heedeen waa mahadsantihiin